السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحرن channel كان Somali Universe كسو دوادا مركليو برنامج كاني تكنولوجيا دا برنامج كاني أسبوعان وحان كسو قادن دونا سيدي بعد وآخر السنة يسا فريمها واتساب كا قف كالي بلس انتا انو قد قلن كور برنامج كينا حدي ميدانا اي تايب وقشداد كوري سي channel كا هايلو بين انا سبسكرايب سارتو سي كسو قارن فيديو دي ودن بي ان سابلود كرينو استعمالنا واتساب waxaan tageynaa website-ka rasmiga ee WhatsApp uu leeyahay WhatsApp web-ka wuxuu leeyahay domain name-ka oo sidaan ah waxa qoraysaa web.whatsapp.com markii aad gasho website-kan automatic wuxuu ku geyn doonaa qaybta loogu talagalay in iskaanka aad ku mariso oo aad computer-kaaga ku isticmaasho balse maadaama aan computer isticmaaleynin oo aan telephone isticmaaleyno WhatsApp waa ka xirtay barnaamijkaas hore idinku uu sheegay waxa ku furan oo kaliya inaad application-ka la soo degto WhatsApp-ka oo loogu talagalay Android-ka iyo midka loogu talagalay iPhone-ka inaad la soo degto oo kaliya ayaa lagu ogol yahay si marka aan mobile-kan ugu isticmaalno waxa ku qasbanahay in mobile-keena aan ka dhigno desktop ama computer aan ka dhigno saa u dhigto calaamada saddexdan dhibic oo kala saaran ayaad riixaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa optionska in mobile-kaaga uu dhaqmo sida computer-ka oo kale waxaad sameynaysaa saddexda dhibic taabo kadib waxaa u jeedaa option ay ku qoran tahay desktop site-ka markii aad doorto browser-kaaga wuxuu automatic ogolaanayaa ama uu dhaqmayaa sida in computer oo kale uu yahay markii aad desktop doorato isla markii waxa ku soo bixi doono WhatsApp iskaankii loogu talagalay in aad ku qaadato xogta ama aad ku isticmaasho WhatsApp kale si aad iskaan u mariso oo aadna fariimaha ula akhrisato saa u jeedaan waxa soo baxay quick response-gii ayaa soo baxay oo calaamadii aan idin sheegay marka computer-ka ama mobile-ka aad u baahan tahay in fariimihiisa aad akhriso ama WhatsApp-ka aad rabto inaad akhriso ayaad soo qabanaysaa waxaa leedahay saddexdan dhibic taabo markaa taabaso optionka saddexaad oo ay ku qoran tahay WhatsApp web ayaad ku dhufanaysaa WhatsApp web markii aad ku dhufato automatic waxaa arkaysaa calaamada plus ee kore ayaa ku soo baxayso waa ku dhufanaysaa markii aad ku dhufo kadib waxa ku soo bixi doono iskaanki ayaad marinaysaa marka iskaanka mariso automatic waxa u jeedaa in uu ku xirmay mobile-kan aad wax walba fariin walba loo soo diro in mobile-kaas automatic ay ku soo dhici doontaa haddii ay tahay video haddii ay tahay qoraal haddii ay tahay cod wax walba oo loo soo diro qofkan automatic ayaan halkan ugula soconaya oo barnaamijka si wacan ayaan ula soconaya saa u jeedaan fariimihii mobile-kan ku qornaa oo dhan waa ay soo raaceen haddaan proof sameyno ama caddeyn aan sameeyo saa u jeedaan lambarkan oo kore iyo lambarka hoose saddexda lambar oo meeshaan taalo isla same mobile-kan waa ay leeyihiin saa u jeedaan 26 u dambeys ninkan 26 isla sawir that means mobile-kan fariimaha ku jiro ayaan halkan ka arkaya oo ka akhrisanaya fariin walba u soo dhacdana way ku soo gaaraysaa automatic mar kale ayaan ku celinayaa si qaldan ha u isticmaalin application-ka ama xirfadan si qaldan ha u isticmaalin oo dad ha ku waxyeeleenin adigana yaan lagu waxyeeleenin iska ilaali marka waxaan rabaa inaan idin sheego sidee ku ogaanaysaa in WhatsApp-kaaga la isticmaalayo saalaan qof ayaa kugu sameeyay arrintan oo ku dhahay WhatsApp-ka in maanta dhan fariimihii lagula akhrisanayo qofkii kula gaarayo maxaa sidee ku xalinaysaa waxaa imaanaysaa halkan waxaa ujeedaa in laba qof ay isticmaalayso WhatsApp-kayga marka ugu dambeysay waa 19 daqiiqo mar kalena hadda fiiri currently active hadda ayaa la isticmaalayaa si aad marka ugu xirto waxaa leedahay log out all dhammaan wixii mobile-kayga isticmaalaa waa xirmi doonaan automatic waxaa ujeedaa in telefonkan la soo riday ama telefonkan banaanka lasoo tuuray oo laga xiray isticmaalka uu isticmaalaya haddii aad ka shakiso in telefonkaaga lagula isticmaalayo sidaas ayaad isaga xiraysaa oo wixii dhammaan oo kula isticmaalayay log out ayaad iska leedahay
فيديو halkaas ayuu ku egyahay waxaan rajeynayaa inuu ka saacidayo waxyaalo badan haddii WhatsApp kaaga lagu isticmaali jiray maanta kadib aan lagu isticmaali doonin haddii hadda kadib la qorsheynayo in aan lagu isticmaali doonin WhatsApp kaaga oo aad aqoonteeda leedahay fiidiyo badan oo waxaan soo wadnaa oo ku saabsan WhatsApp-ka iyo Messenger-ka iyo Instagram-ka si aad ugu xirnaato haddii aadan ka mid yahay asxaabteena fadlan subscribe sar haddii aad ka mid tahay asxaabteena sharafta leh like iyo comment nagu saacid oo fikirkaaga iyo arahdaada waxaa nagu biirin karto nagu biiri mahadsanidin